صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. به قام ميزان دين الرسول ودانا به العجم بعد العرب. صحيح البخاري لو أنصفوه لما خط إلا بماء الذهب. به قام ميزان دين الرسول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا. باب الخوف من الله. cabsidii ilaahay subxaana wa tacaala lagaba cabsanayay taas buu baabkeedii yahay. kollayna waa dadka addoommaha dee muttaqiinta maqaamaadkoodii iyo dee kuwa uguba sarreeya ee cabsi ilaahay lagaba cabsada ay tahay, waana waxyaalo uu laasimsanayo iimaanku. qur-aankana way kuba soo noqnoqotaa isagoo ilaahay ina amraya inaan kaba cabsanno. wakhaafuunii in kuntum mu'miniin falaa takhshawu nnaasa wakhshawni inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa. bal kolley iyo dee aayaad kaleba markaa cabsidii ilaahay subxaana wa tacaala lagaba cabsanayay taas buu baabkeedii yahay. addoonku markasta oo aqoontiisa uu rabbi u leeyahay, cadamadii iyo jalaalkii iyo macrifada uu bilaah u leeyahay, maa macrifada uu axkaamtun u leeyahay ee ilaahay subxaana wa tacaala u leeyahay ay korodhaba, cabsidiisuna way sii badnaataa. addoonba addoonku xaggaa uga macrifo badan yahay baana ugaba cabsi badan yahay. oo saas daraaddeed baaba rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu calayh san hore u soo marnay uu yidhi anigaa idinku cabsi badan ilaahay subxaana wa tacaala, adaa idinku cabsi badan. bal waana taas weeye. kollayna dadka iyagu muqarabiinta ama taa cabsidooda siyaadada waxa keenay nicmadan ilaahay siiyey ee badan ee dadka kaleba uu kaga fadilay, shukri bay mudatay. waxay mudatay iyadana bal xaqeedii in laba guto. haddaba taasi waxa weeye iyaga wixii saarnaabaaba kaba weyn dadka kale la fadliga ahayn wixii saarnaayo sanbaa khowfkooda iyo cabsidooda ayuba badnayde. bal waxa weeye haddaba khowfkii iyo cabsidii ilaahay lagaba cabsanayay ayuu baabkeedii yahay. waxaana shaarixu leeyahay addoonku hadduu ruux mustaqiima yahay, cabsida waxyaalaha uu ka cabsado dee waa waxyaalaha ugu mudanee wuxuu kaba cabsadaa. markaa waa xumaan uu la imanayaa ma jirto, waajib iyo amar uu kaba tegayaa ma jirto. cabsidiisu waxay noqonaysaa isagoo ka cabsanaya talow caaqibadu maxay noqon, ciribta maxay noqon, maxaa lagugu khatimi, ama waxa weeye dee darajadeed iyo darajaadkaa dadku ay mudanayaan oo isagii dee uu halkeedii gaadhiba waayo nuqsaanu daraja. laakiin ruuxii isagu dee mukhallidka ahaa ama maayalka ahaa dee cabsidiisu waxaabay noqon ficilkan xune uu laba imanayo iyo waxa ka dhalanaya iyo ciqaabta kaba ratibmaysa. bal maalan taasoo uu kaba cabsado, oo haddii taa nadam iyo waxyaale ay laba socdaanna ay dee towbo u noqonaysaba iyo iqlaac haddii laba jiro. bal haddaba waxa weeye cabsidii ilaahay lagaba cabsanayay iyo dee fadliga ay leedahay iyo ruuxa ilaahay ka cabsadaa wuxuu mudanaya makfiro ah ayuu baabkeedii yahay. bal qolada ayaa amsiya hadlaysa. xadaثna cثmaan bn abi shaybata qaala xadaثna jariir can mansuuri can ribciy can xudayfata can الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama qaala anahu qaal. xudayfatu bn اlyamaan baa xadiidkan warinaya. markaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahay buu kaba wariyo. rasuulka ilaahay baa yidhi kaana waxaa rajulu nin minman kaana qablakum oo dadkii idinka horreeyey ah, waa ummadihii iyada inaga horreeyey. reer bani israa'iil buu ahaa. sidaasoo akhbaartii reer bani israa'iilna aynu hore uguba soo marnay xadiidka. yusii'u mid xumeeya addanna malaha iyo waxa uu filanayo bicamalihi camalkiisano macnaa camalkiisa uu sameeye uu ogaaya xumaa ayuu dee wuxuu markaas ilaahay subxaana wa tacaala wixii bal maalan xagga khowfkiisiibaa batay oo wuxuu kaba filanayay waa ciqaab iyo cadaab camalkiisan sababtii. oo wuxuu xumaynayay danniga
iyo dee waxa weeye ilaahay xaggiisa wuxuu kalaba kulmayo bisababi camali faqaala liahli ehelkiisii buu ku yidhi idaa ana muttu haddaan dhinto oo anigu haddaan dhinto kolley ficilkana hore inuu soo marro maata yamuutu iyo maata yamaatu iyo maata yamiitu intaba waa u yimaadaayo dee markay maata yamuutu tahay ayaa miimtani damadeedu imanaysaa mutum qur-aankana labadaba oo mitum iyo mutum la wada aqri haddii dee maata yamaatu ay noqoto ama maata yamiitu labadaa kalena midtu bay ahaan lahayd weeye halkan markaa waa luqaadkii ficilkani kuba imanaya uun mid kaa mida ida ana mutu haddaan dhinto fakhuduunii iqaada meydkayga hay aasinuu leeyahay iqaada oo igubowsa ay noo soo socota markay damba dee inta weliba lafahaygii iyo wixii hadhay aad ridiqdaan dambas uu wada noqdo fadaruunii waxay igu firdhisaan oo saa igu saydhaan filbaxri badda fii yowmin saayfin maalin kulul oo dabayl la weeyo oo dee intuu dabaylban si xagaageen oo kale waa kan dabaysha badan inta taa la sugtaan oo la eegataan dambaskii saa badda ugu firdhiyo saas si uu u baaho dee bal maalan fafacaluu bii sii bay sameeyeen wuxuu dee saa ugu dardaarmayna way noo soo socotaaye fajamacahu llaahu ilaahay baa soo ururiyey isagii ilaah baa isu keenay uma qaal ilaahay dee marka horeba cadam kaba abuuray turaab iyo nudfo kaba abuuray ayaa wixii iyagu markaa dambaskii dee baahay ee badda kala raacay iyo dabayshaas ayaa rabbi isu keenay isagii waabuu noqday oo sidiisiyaa rabbi u soo celiyey uma qaala wuxuu ku yidhi rabbi maa xamalaka maxaa kugu xambaaray cala aladii kii sanacta waxaan aad samaysay ee dardaarankan ah ee san markaa dee in lagu gubo oo dabaysha lagu raaciyaa maxaa kugu kalifay ee kugu xambaaray qaala wuxuu yidhi maa xamalanii calayha aniga iguma xambaarin ilaa makhaafatuka cabsidaadunbaa taa ii geysayoo dee dembigan sameeyaan ogaa waxaan isidhi malaa saasaad dee waxa weeyaan hadhow laguma helayaba oo saasaad waxa weeyaan dee lagugu waayayo cabsidaadunbaa taa igu xambaartay faqafara lah rabbi waa u dembi dhaafay riwaayo kale xadiidka inoo dambayso ka yar waasacsan markaas wuxuu yidhi waa kan imaamkune xadaanaa muusa qaala xadaanaa muctamirun qaala samictu abi qaala xadaanii qataadatu can cuqbata bni cabdilgaafiri can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu can الnabiyi salى اllahu calayhi wasalam bal waa xadiidkii hore uun oo kale waa inooga waasacsan yahay kii hore waxaa warinayey xudayfatu bnu lyamaan kana saxaabigii kale jaliilka ahaa asxaabtii rasuulka ilaahay dee mugtiriintiiba kaba mid ahaa abu saciid alkhudri baa riwaayadan kalena inoo warinaya markaa wuxuu yidhi cabdulkaafirkan taabiciga ee abu saciid kaba wariyeyno kolley waa nin reer basro ah oo dadkii lagu kalsoonaa ruwaadda kaba mida kitaabkeennan iyo muslim iyo nasaa-i riwaayo ku leh saddexda kale kuma laha oo atbaac taabiciintii yaryarayd walow laga sii yaryarya waa dabaqadii imaam zuhri iyo dabaqadaasba ah ninkan cuqbat bnu cabdilkaafir wuxuu yidhi markaa abu saciid can inabiyi sala allahu calayhi wasalama dakara anahu dakara rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh wuxuu sheegay rajula nin buu sheegay oo fii man kaana salafa dadkii horreeyey kaba mid ahaa waa nin ummadii innaga inaga horrayso waa kaa xadiidkii hore baan kuba soo marray fii man kaana qablakum ayaan kuba soo marray waana reer bani israa'iil baa saasa akhbaartii reer bani israa'iil uguba soo marray ninkaasoo aataahu llahu ayuu sheegay oo aataahu llahu ilaahay siiyey maalan xoolona waa lahaa oo waladan carruurna waa lahaa iyo awlaad nicmadaas badan buu ugu nicmeeyey yacnii acdaahu kolley waa tafsiir min araawi aataahudii bay tafsiir u tahay ficilkan aataana markaa hamsadiisu ay deesan oo kale mamduud tahay waa bimacnaa acdaa weeye waa siin haddii hamsada dee waxa weeyaan keliya ay noqoto maqsuur adigu ama la qasriyo oo kale ataa ay noqotona waa imaatin iyo maji waa aataa iyo ataa farqiga u dhexeeya ama labada macnay kale leeyihiin qaala wuxuu yidhi markaa waa xadiidkii rasuulka ilaahi marfuuc ahaa falamaa xudira markii lagu soo xaadiray macnaa markii geerida calaamaadkeedu ay ku yimaadeen weli waa ruuxan dardaarmi ka
isagu hadlaya xaalo qarqara ma gaadhin ee waa kan markii lagu soo xaadiray ayuu qaala libanihi inamadiisii ku yidhi aya abin kuntu lakum bal aabbahee ayaan idiin ahaa idinka marka la eego dee si ula dhaqmayey si uu korinayey si uu wax ugu tarayey iyo umuuraha uu tarbiyeynayey bal aabbe dee siyeyaan idin ahaayo dee aabbo fiican maan idin ahaayo idinkii bal matalan xuquuqdiinna ilaaliyo guta qaalu waxay yidhaaheen markaa khayra abin aabbo ka ugu fiican ayaad noo ahayd qaala wuxuu yidhi ninkii fa innahu isagu shaan lam yabta'ir kolley tafsiir qataada inoo soo socda macnaha ma dhiganoo wuxuu iska sii horraysiye maaho ma kaydsan cindallahi ilaahay agtiisa khayran wax khayroo uu sameeyey oo ku leeya ma jirto kollayna dunuubtaa uu samaynaya waxaa kaba mid ahaa malaa markan hore inuu wax yeelan inuu nabaash ahaa horeynu taa uguba soo maray nabaashku waa dadka marka ruuxii la aaso xabaashii intay faqaan kafanta ka xada ama kafanta kala baxa oo halkaas wax ka daya inuu taasba dunuubtiisa ay kaba mid ahayd wuxuu leeyahay wax khayr oo aan horraysiistay oo waxa weeyaan ilaahay agtiisa ii yaalla ma jiro maanta wain yaqdam cala allaahi haddii uu isagu min alquduum weeye haddii uu dee u tago oo uu la kulmo ilaahay oo dee uu waxa weeye inta la soo saaro rabbi subxaanahu watacaala dee la hor keenana yucadibhu rabbi waa cadaabaya dembigiisuu sheegayaa waa kan oo dee waa kaanayu si u dadna waa taa aynu soo marray bicamalihi camalkiisii buu arkaya camal xun inuu yahay camal cadaab loogu mudanayo inuu yahay wax khayroo ka horreeyaana inaanay jirin markaa kol hadday arrintu taa tahay fanduruu bal eega oo arrintan idiin sheegayana u fiirsada qaatanoo ku dhaqmo oo fa idaa mudtu markan dhinto fa axriquunii iguba horta xataa idaa sirtu faxman markaan dhuxul noqdo fasxaquunii ridqa dhuxushaas ee wixii dhuxul mar noqday iyadii tuma ama ridqa si ay iyadna budo u noqoto oo bal matalanta aw qaala wuxuu uhi fasakuunii waa isla macnown uma idaa kaana welibana markaa ha iska daadininun saase uma idaa kaana markuu ada riixun ayo de waa yowmun duu riixin weeye marka aad aragtaan maalin dabayl leh oo dabayl badan leh riixaasoo caasifun waa dabayl aada u kacaysa aada u dhabanayso taasi ay jirto fadruunii fiiha igu firdhiya oo taa iguba baahiya tadruuhu riyaaxu tansuratu markaa kahfiba adigu ficilku walow dee dhowr imaka daraahu iyo oo macnaa min tadri oo tafriiqa iyo daraahu yadruuhu taas suuradda kuba sugan iyo macnaha waxa weeyaan tadruuhu riyaaxuba dabayshaa raaciya weeye saa u baahiyo dabayshu ha qaado damba sabaxabad yariba meel ha gaadho saas fa akhada welibana saa kumuu dayniyo dardaarane wuxuu iyagii kaga qaaday arrinkaa mawaahiiqahum calaa daalika waa ballamo adag oo iyagii buu dhaariyey oo inay saa yeelayaan oo ballan iyo cahdi adag ayuu iyagii kagaba qaaday wa rabbi kollaysan baa halkan inooguba sugan in waxa weye muslimna iyadna waabay dhacdayba marka waxa weeyaanuun in arrinkan inay dee uu wixii bal wa rabbidan imaka waa qasamkii jawaabtiisa ay xadfan tahayba oo wa rabbi facaluu daalikaba fa facaluu arrinkaa way sameeyeenoo rabbi waan ku dhaartee fa facaluu adigu way faleen wixii oo way sameeyeen arrin oo bal matalan taas kolley shaarixuna malaa waxyaalo kalena uu ku yar tawjiihinaya way jirtaa bal waa ta ugu daahirsan siibaa arrintii ay fuliyeen adigu wixii aabbood kula dardaarmay way wada fuliyeen way gubeen maalin dabaylay la eegteen baddii ayay weliba malaa meel badnaa way ag yaalleenoo baddii bay saa u raaciyeen oo u seedheen fa facaluu fa qaala allaahu ilaahay baa deeta wuxuu yidhi kun ilaahay baa dee isagii waa haw macnaa ilaahay wuxuu dee ilaahay baa soo saarayay sidiisiibuu ku celiyey wuxuunbuu yidhi noqo saadii hore oo fa idaa rajulun waxaabuu noqday idaadu atii fujaayadahayd wuxun baaba dhacay waa nin qaa'imu taagan waaba taagan yahay waxba kama maqna waa sidii uu ahawn arrintiisaa horena waxaysa dee kol haddaad saa noqoto waad qarsoomiyo laguma helayo ama laguma soo saarayo shaki uu ilaahay qudradiisii kaba shakisaya baa jir inuu sidiisii ku soo celinayo dee uu kaba shakisnaa baa jirtay taasuu islahaa ilaahay unbaaba yidhi kun oo waaba taagan yahay uma qaala wuxuu yidhi ey cabdii addoonkaygiiow maa xamalaka calaa maa facalta maxaa kugu xambaaray
waxaad samaysay maxaa kugu xambaaray qaala wuxuu yihi makhaafatuk waa cabsidaada igu xambaartay adiga aan kaa baqanayo on isleeya dembigaad gashay dee waxa weeyaan waad laguu cadaabayaa rabbi baa ku cadaabaya oo cabsi aan taa ka cabsanayo oo dee halkana jahli hayay uu isyidhi sidan baad ku badbaadaysaayoo aan laguba helahayn waa kan ile badda weliba maalin dabay la raaciya oon markaa aan laysin ayay dee taasi ay jahligaasna waa jiray aw faraqun minka waa isla macnoon cabsi xaggaaga aan ka cabsanayo ayaan saa u yeelay famaa talaafaahu an raximahu allah famaa maadan mawsuulan kaba dhigaynaa oo famaa kii talaafaahu isaga haleelay ee la kulmay ilaahay xaggiisa kala kulmay wuxuun baabu ahaa an raximahu llahu ilaahay inuu dembi dhaafay oo uu naxariistay haddii dee imaka maadu ay naafiye tahay ilaa baan meelahan qadaranaynaa tii siiqadii ama xarafkii istitnaha oo ay noqoto famaa talaafaahu lama kulmin isagii maa tadaarakow ilaa an raximahu llahu in ilaahay u naxariistay uun mooye rabbi baa adigu u dembi dhaafay cabsidaa uu kaba cabsaday ee arrintanna cabsi daraaddeed uuba sameeyey khashidaa qalbigiisa ku jirtay jahli kaleba haba jire ayaa rabbi subxaanah wa tacaala uguma naxariistay faxadatu xadiidkan sii raacinaya faxadatu abaa cuhmaana xadiidka markii hore muctamir ibnu sulaymaan baa aabihii sulaymaan ka warinayey sulaymaanna qataada can cuqba can abi saciid taas bay ahayd marka ciddan le faxadatuna waa sulaymaan utaymi oo isna taabiciya qataada iyo la dabaqaa bal cabdulkaafirkana waa isla wada dabaqa qolooyinkani waxa weeyaan cuqbahan baan u jeedaa in cabdulkaafire ayaa waxaan ugu waramaya xadiidkan abaa cuhmaan annahdi horna isagoo sulaymaan utaymi abaa cuhmaan wax ka warinaya waan soo maray waa nin mukhadramo isagu cabduraxmaan ibnu mallin la yidhaaho mukhadramiintii ahaa abaa cuhmaan annahdi ayaan xadiidkan aan maqlay ee qataada can cuqba can abi saciid ayaan u sheegay oon ugu warramay faqaala wuxuu yidhi markaa saxaabi kaleo xadiidkii warinaya ayuu u soo kordhiyeyoo samictu waxaan maqlay salmaan alfarisi baan maqlay imaka halkan qadarkii masmuuca ahaa waan maqlay unbuu yihi wixii uu maqlay ee uu salmaan ka maqlay halkan nooguma sugnaa wixii masmuuca ahaa ayaa meesha ka maqan intan yaree istitnaa qadarkan uu kordhinayo istitnaa ahaan uu kordhinayo mooye oo wuxuu leeyahay markaa oo macnuu uu yahay samictu salmaana yuxadiثu can الnabiyi salى اllahu عalيه wasalam bimili hada اlxadiid salmaan baan maqlay oo xadiidkan oo kale rasuulki ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh ka warramaya laakiin maxaa dheer hayra annahu zaada wuxuu ziyaadiyey markaa waa intii riwaayada salmaan oo ay la dheeree tan kale imaka abaa saciidan aragnay dee tii horena way kaba sii dheertee xudayfe annahu zaada fadruunii fi lbaxri waa intan albaxri oo laftigaa hore aan igu sugna markaa maalin dabayl la eegtaan waa intan ziyaadada ah ee waxay igu firdhisaanoo saa iigu saydhaanoo dabaysha u raacisaan badda waa dabayshaas dee si markaa waxa weeyaan inta baddii la tagtaan xeebteedii maalintaas dabaysha le dambaskii raaciya oo saa ugu firdhiya aw kamaa xadaanaa adugu kolkol markaa xadiidka macna lagu wariyey ama laftigiisa shaki ku jiro waa lafti ay la yimaadaan waqul akhiiran aw kama waxa weeyaan masalan waqul akhiiran aw kamaa qaala wamaa ashbahahu ka shaki fii masbihima suyuudi oo kale oo markaa macnuhu waa maxay raawigii oo inuu lafdigan abaa saciid uu laftigiisii yahay iyo inaanu laftigiisii ahayn baa adigu waxay kuba jiraanoo macnuhu uu markaa noqonayo uun xadiidkaa macnihiisii aynu soo marruu lahaa intan baana uu la dheeraa lafdigan fi lbaxri waa inta dee ziyaadadayna inta kale way nooguma sugnayde waqaala mucaadin xadaثna shucbatu can qataadata samicta abaa saciidin can nabiyi sala اllahu calayh wasalam waa riwaayo kaleoo muslim leeyahay oo shucba ayaa qataado ka wariyey markii hore sulaymaan salmaan may ahaa muctamir ibnu sulaymaan utaymi baa warinaye laakiin maxay noqotay qataada waxaabu abaa saciid buu toos ugaba wariyey de markii hore intuu waasida ka maqlay buu xadiidkii abaa saciid toos ugaba wariyey balxadiid kolley arrimaha uu inoogu baabaabaysnaa waa cabsida ilaahay iyo cabsida ilaahay ruuxaa dee ay qalbigiisa ku sugan tahay dee cabsidaasna waxay keenaysaa inuu haddii uu dhowrsoon yahayna xumaantii ka dheeraado wixii la farayna uu laasimo ayaa cabsida ilaahay keenaysaa haddii markii hore ay wax kaba dhaceenna
cabsidu waxay u keenaysaa towbo uu rabbi u toobad keeno intuu xumaantii faraa ka qaado kaba murugoodo taasna ay dee toobad noqoto iyo dembi dhaaf ay noqoto bal markaa khowfka ilaahay subxaana watacaala laga cabsanaya labadaa xaalaba horta dee waa fadliga uu leeyahayoo ayaa iyada inooguba sugan ruuxa caynkaasee rabbi subxaana watacaala ka cabsanayana ilaahay subxaana watacaala inuu naxariisanayo oo markaa cabsida dee dhabta ay xumaan ka joojinaysa wanaagina ku xambaaraysa ay tahay ama haddii dee wax horaba ay ka dhaceen taas nadamkiiyo iqlaaci uu laba socdo in ilaahay subxaana watacaala dee uu ruuxii uguba naxariisanayo ugu dembi dhaafayo ama arrintan kolley ninkan kaba dhacday wuxuu is yidhi haddii malaa ilaahay sanuun kugu soo saaro sa ad imaka tahay kugu soo saaro dee waxa weeyaan ciqaab badan baad mudan laakiin haddii dambasba lagaa dhigo oo bad lagu raaciyo waaba dhici karta inaad taasi ay qarsoonaato arrinkaasna maxaa kuba sugan shaki ilaahay subxaana watacaala qudradii ilaahay taa uu lahay inuu sidiisii ku soo celiyo dee shaki baa kagaba jiray shakigu baabkaasna dee waxaabu keeni karaa wax kufriya ayuu keenaya laakiin ninkan maxaa jiray cabsidaasna qalbigiisa way ku sugnayd jahlina waa jiray oo bal maalan waa isagii oo waxa weeyaan arrintan khowfkii markuu ka qaalib noqday cabsida ay kaba qaalib noqotay bal maalan taas ayaa waxay keentay inuu arrintan iyo qalbigiisii iyo waxyaalaha ama shakigaaga iyo tani ay kuba dhacaan jahlina ay kuba dhacaanoo dee wax looguba cudurdaaray noqotay markaa taas waana ka ku mutay naxariista ama ilaahay u dembi dhaafay sheekhulislaam ibnu taymiya raximahullah isagoo dee marar soo celceliya arrintan xadiidkan markaa uu kaba hadlayeyba waa wuxuu yidhaahaa ninkan xaalkiisa marka la eego xagga ah qudradii ilaahay inuu ilaahay karayo iijaadkiisa iyo sin soo celin karayo iyo inuu soo celinayo sidiisii isagoo u soo celin karayo shaki ayaa kaga jiray waa shakiguna dee waa gaalnimo laakiin markay noqotay jahli iyo garasho la-ani inay tan haysay cabsidna ay kaba qaalib noqotay ayuu noqday ruux loogu cudurdaaro arrinkan rabbina ugu naxariisto markaasaa wuxuu raacay dee kol hadday taas xaaladiisu ay tahay ruuxan mujtahidka ahee isagii waxa weeyaan daacadii ku dadaalaya rasuulka ilaahay mutaabacadii dee ta'wiil iyo waxyaala ay kaba dhaceen waa kaa xariiska ah rasuulka ilaahay mutaabacadiibuu ku dadaalayaa waa min ahli ijtihaadba markaa daacadii ilaahay ama taasoo kale ta'wiil baa kaba dhacay isaga in loo cudurdaaro ama waxa weeyaan tan uu kuba muto kaga mudan ruuxan dee isaga shakigaasba kuba jiray waa hadal waxa weeye kolley meelo kala duwan oo majmuuciisa aba uu kuba soo celceliyo oo uu leeyahy ruuxa ahla ta'wiilkee laakiin alxariis calaa mutaabacati rasuulilah min ahli اlijtihaad huwa awlaa bian yucdar maalan ninka caynkana ee arrintiisuba ay ahayd xaalkan isaga kaba dhacay wax gaalnimo keenaysa laakiin jahli ahaan iyo waxa weeyaan taas looguma cudurdaare kan haddii jahli waxyaala uu taa uu laba yimi isaga kaga awlaysan ama kagaba mudan halkan ruuxan cudurdaarkiisa ama in isagii looba cudurdaaro ibn abi jamarna shaarix wuxuu kaba soo noqonayaa ninkani horta sidii guud mu'min buu ahaa waa kan xisaabi inay imanayso camalkan laysu cadaabayo rumaysnaa sayi-aadka laysku cadaabayana rumaysnaa laakiin waxa weeyaan arrintan baa dee jahli u geeyey iyo garasho la-aan iyo bal maalan taasi ay u geyso tan baa deeta keentay waxa weeye inuu dee bal in arrintii looguba cudurdaaro malaa waxaanuu kuba dardaaramay iyo dee taasoo kale se wuxuu kaba dhigay oba laga yaabaa shareecadoodii in dee gubitaankaas iyo waxyaalahaasi kuba bannaaneen laakiin taa waxba kuma sugayne muhimku waa arrinkani waa dee jahliga isaga hayay iyo qalbigiisoo cabsi ilaahay ay kuba jirtay ayaa keenay uun bal arrintan iyo in isagii maqfiro uu muto baabulintihaa'i can almacaasi joogsigii laga joogsanayey macaasida laga dheeraanayey waxaan ka tegey baabulintihaa'i can almacaasi oo macnaa waxa weeye guud ahaan faraha laga qaadayoon looba dhowaanayn haddii lagu dhacana inta faraha lagala baxo laga tegayey oo lagaba toobad keenayey bartaas buu baabkeedii yahay xadaثna mحamed بن العلاء qال xadaثna أbو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أbي بردة عن أbي بردة عن أbي موسى qال أنه qاal kolley sanadkanin waxa weeye in badan baan soo aragnay isagoo saasun isu raacsan abu kurayb laga bilaabo ilaa abaa muuسى الأشcري oo dee saddexda dambe ay isla qoysiin بريد بن cabdاللahi بن أbي بردة
oo yuu ka warinayaana awowgii weeye abu burdana aabbihii abu muusa alashcari hore ayaynu isagoo saasa uuna aynuu soo marray abu kuraybna waa 9 sheekoo aimadan kutubta 6 iyaga ay ku kulmaanba bacnaa dhammaan ay la wada kulmeen ay wax ka wada qaateen toos ay uga wada qaateen ayuu abu kuraybna kaba mid yahay bal taaba weeye lafti yaroon islahaa markaa yar qaba markaa hore oo waa markuu fii yowmin saa'ifin qabanayay qolooyinkiina fadxaysa laftigaa saa'ifuu riwaayaadku waxay ku yimaadeen iyobuu imaamku yar tatabucay markaas baa deeto riwaayo ayuu soo naqliyay xataa idaa kaana riixun caasifun marka halkaa uu joogo ayaa laftii xaasin ama waxa weeyaan lafti sidaasa ama xaarin buu adigu soo naqliyey ibnu faris buu markaa ka soo naqliyaa alxawn bal waxaan la arkay qolooyin kale iyagu kaba soo naqliya ibnu faris oo alxanuun halkan leh waxaanay u baahan tahay bal kutubta luqada si taama in loogu noqdo halkaa uu alxawn yidhi ayaa alxanuun ah oo riixun taxinu ka xaniini libil waa dabayl markaa magaceed oo kale uu ka dhigay laakiin waxaan uga jeedaa halkan alxawn kitaabkeena dhacday ayaa alxanuunna markaa kutubta luqada bal khaasatan ibnu faris kitaabkiisa mooye bal lisaanka iyo wixii dhacay waqti balbay u baahan tahay inaan dib ugu yar laabano insha allahu tacaala wuxuu yidhi haddaba qaala rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi mathalii wamathalu maa bacahani allah aniga tilmaantaydu iyo waxaan dee ka dhig ama sifadaydu ay tahay waxa aan dee shabahayo ee mathal ii iyo wamathalu maa kii mathalkii iyo waxa uu la mid yahay ama uu ka dhigan yahay haddaan wax ku shabahayno aan kuba shabahayno maa kii bacahani illaahu ilaahay ila soo diray ka mathali rajulin oo macnaa waxa weeye waa rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu calayh ilaahay baa inoo soo diray waxyibuu u soo dhiibay awaamir iyo nawaahiba leh bal markaa waxaanay dee waxa weye mucjizaad iyo umuurahaas waaweyna oo dee caddaynaya inuu run sheegayana rabbi subxaanahu watacaala waa ku xoogeeyey bal haddaba isaga ayaa mathal buu ina siinayaa wax dee isagii lagu mathalo ama shabah u noqonaya oo lagu shabaho ayuu isaga iyo waxa uu laba yimee xaqa ahaa iyo umuurahan lagu xoogeeye mucjizaadkaaya dee inuu run sheegayo caddaynayay iyo dadkan laynoo soo dee inagoo kale saa xaalkeennu yahayoo kamathali rajulin waa nin oo kale ataa u yimi qowman qowm u yimi faqaala yidhi ra'aytu waxaan arkay aljeysha ciidankii baan arkay waa ciidankii idinku soo duulayay laga cabsanayo inagu soo maqnaa baaban arkay bicayni ishayda tushmihanina bicaynaya indhahaygaan ku arkay ama ishaydaan kuba arkay oo cadowgii waa idin hayaa wa ana aniguna annadiiru ku digayaano alcuryaanu qaawan waa ruux dee isagu waxa weeyaan idiin digaya ayaan ahay fanajaa war badbaada war ka kaca meesha ka ordo oo ciidanku intaanu idin soo gaadhin meeshan iskaga taga taasuu yidhi laftigani waa ana nadiiru alcuryaanna dee waa kii digayee qaawanaayo culimmadu kolley bal markaa asalka hore lafdigan bay waxyaala soo naqliyeen asal u ahaa deetani mathalba haba noqotay annadiiru alcuryaani bal dhowr arrimood buu soo qaaday waxa ay umuuraha kaba mid ah weliba nin uu magacaabayo oo reer kale waa inanlayaal kuba ahaa waa reer khadxan bu reerka kalena aaluzabiid ayaa qoomkii dee isagu la deganaaya uu kaba qabay baa doonay reerkoodii inay ku duulaan isaga reerkiisii ay kuba duulaan waxay ka cabsadeenna inuu isagu qoomkiisii u digo laga digniin helo isagii baa gaadh lagaba qabto 4 nin baa loo diro isagun ilaaliyo si aanu dhaqdhaqaaq u yeelan iyadoo xaaladu taa tahay ayuu mar ay ka yar jeesteen ayuu intuu dharkii tuuray nin aad u ordana wa ahaa ayuu cararay oo dee nin aan laba gaadhin buu ahaa dharkiisiina kaba teg qoomkiisii buu isagoo dee muruxsan oo qaawan ayuu ku dhex dhacay war waa laydhahayaaye ka kaca calaamadna waxay tilmaamaysay ninkana been iyo waxba laguma aqoon oo dee inuu run sheegayo arrintan markay arkeen isagoo qaawan ayay u arkeen dee inuu run sheegayo dee meeshii baa laga qaxay meeshii ay dee intaan ciidankii sooba gaadhin markaa taasay deetay annadiir alcuryaa yidhaaheen rasuulkii ilaahayna salawaatullaahi wasalaamu calayh arrinkan uu laba yimi xaqan uu laba yimi iyo wixii ilaahay ku xoogeeyey mucjizaadka ayaa caddaynaya inuu run sheegayo ayaa dadka si uu fahamsiiyo waxay caado u lahaayeen iyo waxyaalihi ay yaqaaneen buu ugu mathalay oo tanoo haddaba anigu waxaan ahay ninkaasoo kale intuu yidhi ciidankii waan arkay
anaa arkayoo wax lay sheegay maaha uu idin hayaa ee meesha ka carara oo yidhi qoomkiisii ku yidhi fa annajaa annajaab iqray ku nasbisantahoo waxa waa laasimtaan waa idee badbaada oo waxa weeyaan ka kacayo meesha de waxa weyan haddii laydinku soo gaadho ciidankaasaa idin haye mana qaabili kartaane meesha iskaga carara fa adaacathu waxaa adeecday daa'ifatun dadkii baa qaybi rumaysatay markaasay adeeceenoo fa adlajuu way guuro galeen habeenkii bay dee waxa weeyaan ka guuro galeen meeshii calaa mahalim iyagoo dee si degan isaga socdo waxoodii qaadanaya fanajow kuwaasi way badbaadeen wakadabatu waxa beenisay daa'ifatun kooxoo fasabaxahum waxa ku waabariistay aljeyshu ciidankii ayaa ku waabariistay oo markii ciidankii kuba waabariistay ayaa fajtaaxahum waa baabiiyey oo waa dee uu halaagay iyagiioo uu baabiiyey haddaba anigu taasaan kaba dhigano rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh naftiisa wuxuu ku shabahayaa ninkaas oo kale digniintan uu cadaab iyo taa ugaba digayo dhowna ninkani qowmkiisa ciidan buu ugaba digay haya oo dee u socda iyaga inay galaan oo ku waabariisanaya ciddii isaga adeecday ee markaa digniintiisii qaadatay wixii uu la yimi awaamirtiisii qaadatay wixii macaasida kaba dheeraatayna wuxuu kaba dhigay ninka qolada maqashay hadalkiisii ee rumaysatay meeshii ka guuro galay cadowgiina sidaa ugaba badbaaday ciddii bal rasuulka ilaahay caasiday ee xumaantii uu u diidayay ka joogsan weyday wuxuu amriyo laba iman weyday wuxuu markaa miaal ugaba dhigay dee ciddan iyaga markaa maxay la mid yihin kuwa ninkii beeniyey ee yidhi uu iska hadlayaaye iyagoo halkii iska deganuun cadowgii kuwa beristay halkii uu kuba baabiiyey taasoo kale ayay xaalkayga iyo xaalkiina iyo waxaan layla soo diray uu kaba dhigan yahay matalku waa kaasoo kale oo ay tay dee rasuulka ilaahay wixii caddaynayay inuu run sheegaye mucjizaad ahaa waa kaa ilaahay subxaana wa tacaala ku xoogeeyey ciddii maqasha ee isaga adeecda wixii uu faray la timaada wuxuu ka nahayana ka dheeraataa naar waa ka badbaadaya ka kalena uu halaagsamaya taa xadaثna abulيamani qaala akhbarana شhucayb qaala xadaثna abuzinaadi can cabdالرaحmaan cabdالرaحmaankani waa imaamkii ama cabdالرaحmaan ibn hurmus waa alacraj awal horeba abuzinaad can alacraj waan soo arki jirnay can abi hurayra asaaniidda abuzinaad can cabdالرaحmaan ama can alacraj can abi hurayra asaaniidda abu hurayra kuwa ugu heer sareeya ayaabay kaba mid yihiin annahu samica rasuul اllahi salى اllahu عalayh wasalam abaa hurayra ayaa wuxuu maqlay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh yaquulu xaaluu ku qowlayo inamaa mahalii anigu san ka dhignay waa mahalkaygu waa kii hore mahal laba mida isna iyo wa mahalu nnaasi dadkan lay soo diray iyaguna waxay ka dhigan yihiin ee mahalkoodu yahay waxa weeye ka mahali rajuli nin oo kale istawqada shiday naaran dab shiday falamaa adaat markay iftiimisay maa xawla wixii isaga hareertiisa ahayd dabkii uu shiday uu iftiimiyey ayay jacala bilaabeen gudagaleen alfaraash waa waxyaalaha yaree duulduulee marka dab la shido awqaadda qaarkeedna xataa tiriigan oo kale ku soo urura ama dabka ku soo daato dee bal maalan meedmala dee waxa weeyaan iyagii kuba daatee sidaa kuba gubta kaasoo kale waxaasaa waxay bilaabeen iyo haadii dawaab waa dawaabtan allatii dawaabtaasoo taqacu fi naari marka dabka la shido kusoo ururtee ku dhacdee dulduulaysa yaqacna fiiha inay isku gurayaan ay ku daadanayaan dabkii markaa ninkii isagoo u naxaya iyagii ayaa fajacala wuxuu isna bilaabay alrajulu yazacuna inuu ka celinayo wayaqlibnu haddana dee kama tegayaan waana wax duulaya hadduu kan halkan ka celiyo halkii kale ay ka soo gelayaanoo ay ka qaalib noqonayaan iyaguna oo fayaqtaximna fiiha naartii ay kuba daadanayaan rasuulka ilaahay iyo dee inagu xaalkeenu taas weeye waa kan wejkii shabow fa ana anugu aakhidun waan idin hayaa bixujazikum guntiyadiinaan hayay guntigaan idin hayaa waa jamcu xujsatin oo halkaa ayn ka guntano weeye sa imaka ruuxu meel ka dhacayo kalood aragtood halkaa guntigiisa ku soo dhegtood sidii ugaba badbaadisay waa taa xujasiinna iyo guntiyadiinnaasaan idin hayaa maxaan ka hayaa cani naari dee si uga hayaano war waxani waa macsiyada waa dembi ilaah baa lagaga fogaanayaa naar baa lagu mudanaya ka jooga daas iyo digniintaas ayaa qabasho uu inaga hayo rasuulka ilaahay oo uu inaga hor joogo inaga celinaya naartii wa antum idinkuna taqtaximuuna fiiha waa ku daadanaysa waatan dee ay dadka inta markaa rasuulka ilaahay caasiyaysa ilaahay caasiyaysaaba ay kaba badan yihiin inta adeecayso idinkuna waa ku daadanaysaan sida lafdi kaloo muslim wa antum tafallatuuna
minii way idinkuna waa iga baxsanaysa kolba waa iga fakanaysaan oo anoo guntigiina haya oo idila ka jooga meeshii ayaa intay iska kay dhufataan iga fakataan baa meeshii isku tuuraysaan daba xaalkayga iyo xaalkiinu saas ayuu yahay oo dee kolley waa tashbiihii hore aynu soo maray mid laba mida oo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh waxa uu ina amrayo ee waxa weeyaan uu dadka in uga digayo markaa ama macsiya iyo wixii uu farayay wanaag ahayd waa si ay naar ugaba badbaadaan dadkuna waa kuwaasoo dee in badan oo kaba mid ama intooda badani amarkiina aanay fulinayn wixii laga nahiyeyna ay kuba dhacayaan marka waxa ay tahay dadka iyagu asxaab shahawaat ee macaasidan kuba daadanaya waxa weeye naartii naar macsiyadna halkay geynaysaa naar bay geynaysaa waxay laba mid yihiinuun waxyaalaha yareeree duula ee iyagu dabkii ku daadanaya hadhow ku halaagsamaya ku gubanaya iyaguna waxaan ay doonayaan ay kuba daadma ay ku dhacayaan naar bay gaadhsiinaysaa dee ay kuba halaagsamaan iyo cadaabka aada u daran bal markaa waa digniin uun rasuulka ilaahay umuuraha caynkaas iyo dee waxa weeyaan iyo shahawaadka in la raaciyo macaasida inoogaba digayo xaalkiisa iyo xaalkeenno taasba weeye xadaثna abu nucaymin qaala xadaثna zakariya wa zakariya bnu abi zaa'ida can caamirin caamirkana waa shacbi weeye qaala wuxuu yihi samictu cabdاllahi bna camrin yaquulu qaala الnabiyu salى اllahu calayh wasalam cabdullaahi bnu camrin baan maqlay isagoo leh rasuulkii ilaahay baa yidhi almuslimu muslimku waa ruuxa muslimkaee islaamkiisu taamka yahay weeye kaamilka yee uu buuxaa man salima ruuxay ka badbaadeen weeye almuslimuuna muslimiintu min lisaani carabkiisa waa dhibkii carabkiisa iyo wayadii gacantiisa ninkaa dadku ay ka badbaadeen ay ka nabadgaleen afkiisay ka nabadgaleen gacantiisana way ka nabadgaleen waa dhibkiisii guud ahaan waa dee inta badana dhibka uu kaba soo fulee waa ruuxaa dadku ay ka badbaadaan ay ka nabadgalaan dhibkiisa ayaa muslim dhab ah muslim kaamila kaasba ah amaa ruuxa dadkii aanay ka badbaadin dhibkiisa ama carab ha noqdo ama gacan haba noqotee kaasi islaamkiisu ma dhamma oo haddaba muslimka kaamilkee taamkii waa kaa walmuhaajiru ninka muhaajirkaee hijradiisu ay taamka tay dhan tahayna ama muhaajirka kaamilkiina man hajara ruuxii ka hijrooday weeye maa naha allaahu canhu muhaajirku dee markii dhulkaa daar kufri ah ee ruuxu diintiisii aanu ku ilaashan karahayn inuu kaba hijroodaa waajib bay ahayd waqtigii rasuulka ilaahayna maka iyo meelihii kaleba waa laga hijroonayo madiinaa la tegayey markii dambe maka la furtayna waa kaa rasuulka ilaahay yihi laa hijrata bacda alfatxi haddaba hijrada taamka ee waqti kastaba jirta waxa weeye waa ruuxa ka tegaya wixii uu ilaahay subxaana watacaala ka nahayey oo dadkii aan hijradaasi u suurtagelinna ee hijra imaka ay muhaajiriin ku noqonayaan baa jirto oo ah waa inay wixii ilaahay ka nahye kaba dheeraadaan dadkii muhaajiriintaana dee hijradoo keliyay iyaga kumay filayn haddaana ruuxu wixii kale ilaahay ka nahye kaba dheeraan oo iyaguna jaanibkaas ishaara ugaba sugan dee inay tahay hijrada taamkee dhan in wixii ilaahay kaa nahye aad kaba dheeraato baltaaba way xadiidkan hore inuu soo maray baabu qowli nabiyi sala allahu calayh wasalama low taclamuuna maa aclamu ladaxigtum qaliila wala bakaytum kaiira kolle waa xadiidka inoo soo socdaba matnigiisii oo wuxuu u baabaysan yahay bal rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh qowlkii uu yidhi qowlkiisii haddaad og tihiin waxyaalaha anigu aan ogahay in yar baa qosi lahaydeen in badanna waa oyi lahaydeen bal xadiidka waaba lafdigiisii wuxuu yihi waa kan xadaثna yaxya bnu bukayrin qaala xadaثna laythu can cuqayrin can ibni shaabin can saciid bni اlmusayibi أن أbا هريرة رضي الله عنه كان يقول أbا هريرة wuxuu ahaa mid yidhaaha qاala رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم rasuulka ilaahay baa wuxuu yidhi low taclamuuna ma aclamu haddaa ogaan lahaydeen waxaan ogahay oo dadkii ayuu laba hadlayaa inagu ina laba hadlayaa ee ilaahayna marka la eego dad oo dhan waxa ugu aqoon badnaa rabbi u yaqaanay rasuulkiisa salawaat ullaahi wasalaamu calayh taas buu uguba khashyo badnaa marka waxa weeyaan waxa anigu aan ogahay ee ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa waxaan ogahay bal ciqaabta ilaahay agtiisa ku sugan iyo shiddada ama intiqaamkiisa iyo waxa weeyaan ciqaabta uu ciqaabiyo kii caasiyey dee heerkay gaadhsiisan tahay
ogtiin waxaan ogahay marka la eego ruuxa marka naftu ay ka baxayso marka sakaraadku ku yimaada uu dhimanayo qabriga iyo qiyaamada iyo ahwaasha iyo shadaa'id iyo dhibta badan ee jirta haddaa waxaan ka ogay ay idinkuna ka ogaan lahaydeen la daxigtum waa qosli lahaydeen qaliilan in yar macnaa cabsidiina badnaan lahayd dee markaa taas cabsidiina badnaan lahayd oo markaasaa daraaddeed qosolkiinu waa u yaraan lahay wax yar baa qosli lahaydeen wala bakaytum waa ooyi lahaydeen kaiiran in badanna waa ooyi lahaydeen xadiidka kalena isagunbay isla mid yihiin oo waa xadiid anas hadda oo xadiidkan kale xadiid abu hurayra uu ahaa oo wuxuu yihi imaamku xadaثna sulaymaan bnu xarbin qaala xadaثna shucbatu can muusa bni anasin can anasin anaskan muuse dhalayna waa anas ibnu maalikun sheekhiisii weeye waana aabihii waa muusa bni anas ibnu maalik kolle waa nin taabiciintii iyaguna dabaqada qataade iyo zuhriyo dabaqadiisia kutubta 6 ana ku wada sugan basrana qaadi kaba noqday wayaanoo hiqa ah wuxuu aabihii buu kaba warinayaa khaadimkii rasuulkii ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh can anasin radia allahu canhu qaala الnabiyu sala allahu calayhi wasalam rasuulkii ilaahay baa wuxuu yidhi low taclamuuna haddaad ogaan lahaydeen oo idinku ma aclamu waxaan ogahay la daxigtum qaliilan wala bakaytum kaiiran kollaydan waa umuurtaas macnaa khowfkiinaa badnaan lahaa cabsidiinaa badnaan lahayd umuurahaas baaba dee waxa weeyaan aad soo xaadirsan lahaydeen waxyaala badan oo dadku ay kuba jeestaan iyo shahawaadkoodii markaa way kaba tegi lahaayeenoo in yarna waa qosi lahaydeen in badanna waa ooyi lahaydeen bal taaba weeye xadiid buu ka soo noqonayaa dabaraani walow sanadkiisa aad buu u daciifiya uu yidhi walow xadiid kaloo malaa ka xoog badan oo isaguna taasoo ibnu xibbaan iyo ay jiraan in rasuulka ilaahay salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh masjidka intuu u soo baxay ayuu iyagoo sheekaysanayo qoslaya masjidkiina way jeegaan way sheekaysanayaan way qoslayaan markaasuu yidhi waladii nafsii biyadih taasoo kale kolle xadiidkaa kalen sheegaya ibnu xibbaan oo kale intuu rasuulka ilaahay qoom saasa uu ku soo baxayoo uu yidhi hadalkan oo kale uu kuba yidhi ayaa deeto uu rasuulka ilaahay markuu kaba tegey ayaaba jibriil u yimoo uu yidhi dee isagoo ilaahay xaggiisa ugaba sida maxaad addoommahayga naxariista ugaba quusinaysaa waayo dee tan oo kale markaa hadho waxa la arkaa khoofkii ruuxu inuu kaba qaalib noqdo waxa weeye oo dee rajihiisii markaa yaraado lima tuqanidu cibaadii oo intuu ku soo noqday uu yidhi sadiduu wa abshiru macnaha sida toosan iyo sawaabka ku dadaala bishaaraysana rabbi subxaanah wa tacaala camalkiina markaa inuu idinka aqbalayo ajri badanna uu idin siinayo bal taasba bal markaa muhimku dee ruuxii cadamada ilaahiyo jalaalkii iyo ciqaabta adag ee isaga agtiisa ku sugan iyo ahwaasha meelaha kala duwan iyo mawaadinta kala duwan kuba sugan soo xaadirsaday had iyo goor xusuusani dee qosolkiisu waa yaraanaya wey baabun xujibat innaaru bishahawaat iyaduna waa xadiidka inoo soo socda laftigiisii naarta waxaa deyr loogaba dhigay waxyaalaha naftu ay doonayso ay jeceshahay oo kale macaasidii iyo umuurahaas ayaa deyr looga dhigo dee ruuxii ku dhacay macsiyadaa laba yimaada hadhow naar buu kuba dhacayaa xadaثanaa ismaaciilu waa ismaaciil ibn abi weys qaala xadaثanii maaliku can abi zinaadi can ilacraji can abi hurayrata ana rasuula اllahi salى اllahu calayh wasalam qaala anahu qaal wuxuu yihi rasuulkii ilaahay xujibat waxaa lagu xijaabay lagu qariyeybo lagu asturay annaaru naartii bishahawaati halkan bedelkeeda labadaba xujibad baa inoo taala oo bukhaari ee xufatna sa muslim oo kaliya way dhacday waana isla macnowne waxaa xijaab looga dhigay ama lagu qariyey naartii ashahawaat bishahawaat baa laguba qariyey shahawaadkii waa waxaa naftu ay jeceshahay ay doonayso oo kale taa ay naftu uga iilanayso taas baa waxa weeyaan lagu qariyey oo dee markaa ruuxii waxaa raacay naftiisa raaciya kuwa ku dhaca macaasidiina waa shahawaadkaasun marka dambe naartiibuu kuba dhacaya waa digniin laysaga digayo shahawaadka iyo waxa weeyaan in dee iyadii laguba shuqloomo ama waxaa laguba dhaco laynaga digayo si dee naar loogaba badbaado waxujibat waa la xijaabay oo waa la qariyey waxa weeyaan aljannatu jannadiina bilmakaarihi waxyaalihii nafta ku cuslaa waa daacaadkii naftii bay ku culus yihiin waatanoo waxa weeyaan oo way ku adag yihiinba waxa weeyaan dee awqaadaheedana laba imanayaana way sii kalaba adag yihiin waxyaalaha nafta ku culus ee ku adag naftu ay karhayso ee kuba culus taasba ee dee daacaada weeye khayrkii ah maha waxyaalo kale
ayaa jannadii xijaab u ah iyagaa dayr u ah ruuxa waxaa naftiisii kula jihaada iyadii ku xambaara ee laba yimaadaa iyadiina maxaa ma'aalkiisu uu noqonayaa janno ayuu noqonayaa bal markaa taasi waxaa labaduba ay tahay boorin laynagu boorinayo daacaadkii inaan u adkaysano kuba sabirno mashaqadeedii kuba sabirno digniin laynoogaba digayo laynagana dheeraynayo waxyaalihii shahwaadki iyo macaasidii waxyaalaha naftu ay doonayso ay u ilanayso waayo tanna ma'aalkeeda ayaa fiican tanna waxaa ka dhalanaya dee naar bay noqonaysaa bal xadiidku taas waana xadiidka ay culimmadu ku tiriyeen jawaamicdii kelimta inuu yahay xadiidku halkan imaamku kaba soo naqlinayo oo asxaabu sunan oon malaa ibnu maaja ku jirin uu u tiriye ibnu xibbaan iyo xaakim ayaa wuxuu ahaa markii ilaahay jannadii uu abuuray iyo naarta ayuu jibriil u diray jannadii u yihi balor jannada soo eeg markuu soo noqday ayaa wuxuu yihi ilaabaan cizadaada iyo cadamadaadaan ku dhaartee laa yasmac biha axadun ilaa dakhala ruuxa jannadaa loo sheego ee looga sifeeyo san ay tahay maa laa caynun ra'at walaa udun samcat walaa khadara calaa qalb bashar waa gelaya ruux markaa ka maqnaanaya halkan ma jiro markaasaa eedaa ilaahay baa amro wixii makaarihda ee naftii kuba cuslaaya daacaadkii baaba dayr iyo xijaab loogaba dhigay jibriil buu ku yidhi orod dib ugu noqo markaasuu soo noqday oo wuxuu yidhi wacizatika laqad khiftu an laa yadkhula axad casiadaadan ku dhaartay waxaan kaba cabsaday dee marka laego oo wixii nafta ku cuslaaye nafta inaan cidbo gelin oo dee tan aynay markay ka fogaadaan ay jannadii geli waayaan haddana naartii bal orod tagoo eeg buu yidhi oo markuu arkay ayuu yihi wacizatika laa yasmac biha axadun fayadkhuluha ilaah baan ku dhaartay cizadaadaan ku dhaartee ruuxa maqlo naar ee looga warramo waxa aan soo arkay dee waa ka ordaya ka cararaya oo cidima gelayso iyadiina markaasaa shahawaadkii dayr loogaba dhigo oo dib ugu noqo ayuu ku yidhi markuu laabmay uu soo noqday uu yihi wacizatika laqad khashitu an laa yajuu'a minha axad waxaa ilaahay cadamadaadaan ku dhaartiyo cizadaada waxaan kaba baqanayaa inay cidbo geli weydo waxa weeye may inaanay cidbo ka nabadgeli weydo waa naartii markaa riwaayadaa hore koobnayd xadiidkan kale ayaa inoo fasirayo oo ay tahay waa xadiga iyo tarkiibkaasi uu inooguma sugan yahay baabun aljannatu aqrabu ilaa axadikum min shiraaki nacli wannaaru milu dalik waxaa baabkan aljannatu jannadu aqrabu way uga dhowdahay ilaa axadikum ruuxa idinka mida min shiraaki nacli kabtiisa indhasheeda oo intaa ay suulkaiyo ay galaan waa la yidhaha shiraak suun dhammaantiiba waa la yidhaha sida dee kaa halkaa indhasha laguma xidhee lugta korkeeda qabanaya waa adigu suunkaa lugtiisa markaa kabtaa uu xidhayun ajsaadeeda iyo qaybaheeda mid kaba midoo suunkeedaas jannadu way ugaba dhowdahay wannaaru milu dalik naartuna waa sidaas oo kale xadiidkii weeye idna lafdigii wuxuu yihi imaamku xadaثana muسى bnu mascuudi qaala xadaثana sufyaan can mansuuri wاlأcmashi can abi waa'ili can cabdillaahi radi allahu canhu qaala anahu qaal bal laga yaroo noqdo muuse bnu mascuud waa nin abu xudayfata nahdi la ydhaah kunyadiisaasaa aada loogu yaqaanaa si uu shaarixuba leeyahay uu magaciisa kaga mashhuursan yahay kolley ninkana rijaashii dee uu usuusha uu imaamku ka warinayay ka mid ma aha taqriib cibaarada uu ka cabirayna saduuqun sayi lxifdi kaana yusaxif waa cibaaradiisii waa nin horta run badan ah laakiin xifdigiisaa xumaa tasxiif iyo kolkol lafdigoonu sidiisii u warinuu tasxiifiyaana uu kaba dhacayay markaasaa wuxuu raaciyaa xadiidka uu bukhaari ku leeyeyna waa mutaabacaadun xadiid usuula uu keligii isagu warinayo sidiisa loo xujaystay ma aha waana bukhaari abu daawud iyo tirmidi ibnu maaja kitaabkiisa markaa asalka ay tahdiib tahdiib ayaa wuxuu yidhaahaa isagana bukhaari horta sufyaan inta badan sufyaan buu axaadiid kumayaalo malaa kaba wariyo oo waxyaalo badan culimmadu ay ku yar diideen sufyaan waxaa isagoo sufyaan kaba warinaya bukhaari kuba sugan waa 3 xadiiثun midi waxaynu ku soo marray halkii cidqigii midna waa kan aan hayno midna waa mid qadar kuba dambeeya waa 3daas intuba waa mutaabacaad waliba ciddii raacdayna wuxuu ku caddeeyaa muqadimada ama hadiyusaari intaba ciddii kale uu bukhaari kaba wariyay ama xadiidka laba warisay mid afraad baa jirto jihaad oo mucallaqo isaguna mutaabaca bal horta kitaabka wuxuu ku leeyahay guud ahaan waa intaa waana mutaabacaad axaadiidtii markaa uu soo shaahid sawmaan arrin kale xaafid markuu sanadkan sheegayay wuxuu yihi wasanadu kulluhu kuufiyuuna sanadku dhammaantii waa reer kuufa kitaabkiisa taadiib iyo taqriib oo kale muuse bnu mascuud wuxuu ka dhigaa inuu kuufa ma soo qaadida inuu reer basre yahay oo dee markaa malaa waxaa mudnayd inuu halkan istitna uu galo
waxa weeyaan mascuud mooyaane muuse mooye intooda kale laakiin halkan kuufiyuuna buu yihi dhammaan waxaana ku sugan taqriibu tahdiib iyo tahdiibu tahdiibba tahdiibulkamaal maan hubsan ee inuu reer basre yahayo bal iyadna waa noqdo yaroo halka cibaaradiisan idlaaqeedaa guud bal ku yar iman karta wuxuu yihi markaas qaala nabiyu sala allahu calayhi wasalam aljannatu jannadu aqrabu mid uga dhow weeye ilaa axadikum axadkiin min shiraaki nacli kabtiisa sunkeedaas waa uga dhow yahay asayru aladii yadkhulu fiihi usbuc waa indhasha halkaa uu fartu ay gasho ama waaba sunkan kaba sarreeye bal waxa weeyaan waa uga dhow yahay oo saasuu leeyahy waidlaqu aydan calaa kulli sayrin muuqiya bihi lqadam ba waa lagu idlaaqa waa uga dhow yahay wannaaru naartuna midlu dalika taasoo kale wey macnuhuna waxa weeye xadiidku daacadani horta jannadii bayna gaadhsiinaysaa oo sabab baa rabbi ugaba dhigay macsiyaduna naartii bay ruuxa u dhoweynaysaa haddaba dee daacadii iyo macsiyadu waa kale waaweyiina wax yar oo kooban oo daacadii waxyaalo yar oo dadku fudaydsadana daacay noqon waxyaalo yar oo dadku ay fudaydsadaanna macsiyadii bay noqon watan habeenkii dhoweyd soo marnay ruuxu inuu ku hadlaya hadal aanu u fiirsanoo uu naarta intee ugu dhaadhacayo hadal aanu u fiirsanoo ilaahay ka raali yahayo darajaad hadda isagii uma fiirsan isma laha intan uu gaadhaya waa hadal dhimiraan ugaba soo baxo darajaad sare jannadii laguma gaadhsiinayo marka waxa ay tahay dee macsiyadii xataa wixii uu ruuxa ilaahay ugu naxariisanaya waxaa la arkaa shay yar uu fudaydsanaya uu islahaa qiimo ma laha inuu kii ugu dembi dhaafayba uu noqdo daacaa shay yar uu fudaydsaday oo islahaa waxba ma laha inuu kii uu cadaab ku gelayaba uu noqdo marka maxaa ay inaga layna farayaa ruuxii shay yaroo khayra yari uu yaryahay ha uga tegin waxaa la arkaa kii ilaahay kugu naxariisanaya inuu noqdo shay yar oo macsiyo ana ama shar ana waxa weeyaan waa yarya daraaddeed ha ugu dhicin ee isna waa in lagaba dheeraado waxaa dhici kartaba kii isaga uu ruuxan lagu cadaabayeyba inuu kaasi noqdo ayaa noqdo oo markaa ujeeddadu daacadin ayaan la fudaydsan daaco yar oo kooban baaba ruuxu naxariis ku mutaa xagga niyadiisa iyo ikhlaaskuu laba yimi macsiyo uu fudaydsadadiisu qiimo ma laha ayaa ilaahay agtiisa kuba weyn oo markaa uu naar kuba galaaye saasay xaaladu tahay jannadiina ruuxa way uga dhowdahay kabtaa uu xidhan yahay suumankeeda naartuna way ugaba dhowdahay ee khayr uu ruuxu la iman karo yaanu yaraysi uga tegin shar uu markaa ka dheeraanayana waa yaryi daraaddeed oo waxani qiimo ma laha yaanu ugu dhicin waayo waxaa dhici kartaba inuu kan ama halaag ka ratimo ama naxariis ay kaba ratimanto xadaثnii mحamed بن المثنى qala xadaثna غundar qala xadaثna شhucbaة can cabdالmلك بn cmayri can abi سلامةa can abi هurayraةa can النabiyi slى الlaه عalيه وasلم qaala anahu qaal asdaqu beytin waa beyt waa shicr walow imaka beytkii oo dhan aanay ahayna dee maca qeybtiisii kalunbaa markaa maqsuudku yahay ama isagii baa lagu idlaaqay iyaduu shadra beyt yahay beyt lagu idlaaqay beyt ama waa tix marka la eego dee qeyb kaba mida oo ruuxi ama uu ku hadlo shaaciru ku hadlo qaalahu shaaciru uu yidhaah ka ugu run badani ee ugu runsani waxa weeye alaa kullu shayin maa khala allah baatilu waa nin markii hore dee dadkii jaahiliyada ahaa cumrigiisaa dheeraado aad buu u dheeraaday mucallaqaadkiina mid ka mida nin le weeye markii dambe laakiin islaamnimadkii waa soo gaadhay oo isagoo cumri aade bal dee in badan oo haddana rasuulka ilaahay muddo dheer baabuu kaba dambeeye ayuu soo gaadhay oo dee waa ninkaa muslimka ah haddaba waxa weeye hadal uu ruux ku hadlo qablalislaam baanu tan ku hadlaye oo nin shaaciri gabay uu tiriyo inta ugu run badani waa gabayga kelimada labiid weeye horena waynuu soo marro ah alaa kullu shayin alaa hooyay kullu shayin wax kasta wamaa khala allaahi ilaahay aan ahaynba baatil wax halaagsamaya weeye oo wax tirtirmaya kullu shayin halikun ilaa wajhaba ama waxa weeye in shay kastaaba waa dhammaanaya haddaba wax kastoon dee ilaahay ahayno subxaana wa tacaala baqa ma laha waxa weeyaan inuu sii joogayo ee waa shaygaa baaba-aye tirtirmayo baatil haddaba waa hadal run ah ayaa shaacirkaasi ku hadlay hadal shaacir yidhaahna waaba kii uguba run badnaa kolleyna waxaaba dee kaba wakulu naciimin laa maxaalata zaa'ilu marka adduunka naciimkiisii la eego raaxo kasta iyo nicmo kastoo lala kulmuu ruuxu haystaa
waa wax laga tegaya wax suulaya wax baaqi noqonaya maaha de waa hadal runa weeye oo bal taas kolley xadiidka baynu hore ugu soo maray halkaa horena qisuu soo naqliyey saxaabigii jaliilka cuhmaan ibnu madcuun iyo labiidoo maka dhexdeeda ka tirinaya halkaama majaalista ay kacbada hareerta ku lahaayeen hadallo dhex maray iyo waxyaalo intii hijradii weliba xabasho uu kaba soo noqday taas buu hore usoo horreysiiye haddaba ta xadiidkan waxaynu baabku u ahaa aljannatu aqrabu ilaa axadikum ishtiraaki nacli dee lafdigana intaasi inoogama muuqato marka wuxuu shaarixu leeyahay raximah llahu tacaala munaasabadu aada ha uba qarsoonaatee dee waxay kulansatay iyaduna wixii bal xadiidkaa hore kulansanayay oo waxa weeye dee wixii adduunyo oo dhan markaad ogaatay inuu baadil yahay oo bal maalan ruuxii caaqilka ahaa waa inuu waxaa baaqiga weligii noqonaya aakhire ka doorto shaygan dhammaanayo tirtirmayo xaggaas bay waxyaalo kaba kulansatay taxriidkaa hore kuba sugnaa walow ay dee munaasabadu ay taa khafigaa tahay baabun liyandur ilaa man huwa asfala minhu walaa yandur ilaa man huwa fowqahu liyandur xadiidka isna laftigiisaa dee macnihiisii weeye ruuxu ha eego ilaa man huwa asfala minhu ruuxa ka hooseeya hadduu xaalo adduunyo oo liidata ku jiro hadduu xanuunsanayo hadduu faqiir yahay haddii dhib kala haysato kollayba dad aada u badan oo kasii liitaa jira dad aada u badan oo kasii liitaa jira si nicmada ilaahay si ay ugu muuqato ruuxa isaga markaa laga fadilay ee ama ka maal badan ka awlaad badan ka waxa weeyaan mansib sarreeya leh ka xoolo badan ka caafimaad badan waxyaalaha ayaanu eegine ka isaga ka hooseeya ee kaga hooseeya hadday uu xanuunsanayo dad badan oo ka liitaa jira oo isagu markaa ruux caafimaad qababa uu noqonayo hadduu baahiya kuwo kaloo kasii liitaa jira dhib kale hadday haysato kuwo kaloo kaba daran baa jirtee si uu nicmada ilaahay aanu ruuxu u yaraysan oy ugu muuqato cidda ka hooseysa eegto waa umuurta adduunyo walaa yandur yaanu eegin ilaa man huwa fowqahu cidda ka sarraysa ee ka mudan oo kaleo dee ruuxii bal isagu hadduu kii ka mudna waxa weeyaan uu eego waxay noqonaysaa waxawade inaan waxba ilaahay siin buu noqonayaa nicmadii ilaahay markaa uu yaraysanayaa wuxuu kan buu indhataagayaa ama taa xataa haddaanu xasdinba ee ka isaga ka liita adduunyo markay noqoto ha eego taas baa nicmadii ilaahay siiya uu ku garanaya oo keenaysa inaanu yaraysan wixii ilaahay siiye xadaثna ismaaciilu qaala xadaثanii maliku can abi zinaadi can ilacraji sanadku waa inagu soo noqnoqdaacaw can abi hurayrata can rasuuli اllaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala idaa nadara hadduu eego oo axadukum axadkiin ilaa man fudila calayhi mid laga fadilay isaga fudila la fadilayo waa kaa kale calayhi isaga korkiisa waa ruux isaga ka mudanoo kaga fadilan filmaali xagga xoolaha oo ka xoolo badan walkhalqi suurada iyo daa umuurihii kalena way soo gelayana caafimaad iyo waxyaalo kale lahaa hadduu kaa eego isaga un yaanu araggiisu taa ku koobnaan marka kale isagii de waxaa geli uun xasad uu kaa xasta iyo isagoo nicmadiisiiyo wixii ilaahay siiyeyba aanay u muuqane haddii kaa uu arko falyandur ha eego ilaa man huwa asfala minhu mid isaga kasii liita oo kaba hooseeya oo minman fudila ciddii la fadilay yadi waa isaga maanta kii la fadilay calayhi calaa mantaa weeye shaksigaa kale lagaba fadilay oo isagu ka mudan yahay ka xoolo badan yahay ka caafimaad badan yahay ka marka la eego umuurihiisa kale iyo waxyaalaha uu kaga mudan yahay xagga adduunyo kaa ha eego taasi waxay keenaysaa rasuulka ilaahay ba salawaatu ullaahi wasalaamu caleyh xadiidkana riwaayaadkiisa barhkood kuba yimi arrinkaasi wuxuu keenayaa inaanu ruuxu yaraysan wixii ilaahay subxaanah wa tacaala uu siiyey ee nicmo ahaayo waa lafdi muslim oo xadiidkanun ah fahuwa ajdaru anlaa tastaruu nicmat allaahi calaykum taas baa xaqiiqo ku ah mudan inaydaan wixii ilaahay idin siiyey iyo uu idinku nicmeeyey aydaan waxa weeyaan yaraysan bal markaa xadiidkani waa macaani waa xadiid aada u ballaadhan shaksigu xaalo kastoo uu ku sugan yahay xagga marka la eego adduunyo dad ka sii liituun baa jira xaalo kastoo xagga diineed uu kaga sugan yahayna dadkii si dadaal badan oo kasii qiimo badan baa jira markaa ruuxii muslimkaa maxaa lagaba rabaa markay diinta noqoto kan waxa weya ka liita yaanu eegin oo markaa idhaahdo cidba kuma dhaanto oonu markaa waxba kororsan
kaka dadaal badan ee ka fiican ee xaggaa kaga horeeya ha eego siduu ugu daydo oo u higsado taas waa xagga diinta markay adduunyo iyo umuurteeda noqoto hadduu kii ka sarreeyey un eego nicmadii ilaahay uma muuqanayso laakiin ha eego dad aad uga badan baa inkastoo xaalo kasta ha kagaba sugnaadee kuwa ka liitumaa jire cidda kasii liidata ha eego taasi waxay garan in ilaahay ugu xamdiyo wixii uu siiyey oo uu garto dad badan inuu ka mudan yahay uu garto nicmadii ilaahayna aanu halkaa yaraysan bal markaa waxa weeye xadiidku dawo ayuu u yahay dee guud ahaanba inoo wada yahay oo in ay tahay shaksigu hadduu ciddii ka sarraysay eego ountaas xasad baa ka dhacaya nicmadii ilaahu arki waayena way kaba dhici dawadiisu maxay noqon cidda ka hooseysa inuu eego taasaa keenaysa inuu rabbi subxaana watacaala kuba shukriyo kolley xadiid buu soo naqlinayaa tirmidi buu sunantiisa ku sugan yahay waana xadiid bal maalan taas dee waa ka camr bnu shacib can abihi can jadih bal xadiidkaas uu imaka soo naqlinayo oo ahaa laba khaslo kolley xadiidka nin baa ku sugan ninka camar kaba sii warinayo musana bnu sabaax oo nin caabido ahaa laakiin nin daciif ah laba khaslo ninka laga helo ilaahay wuxuu ka dhigaa nin oo uu qoraa waa shaakir saabiraynayo nin ilaahay ku shukriyey sabrayna markaa muxuu yahay man nadara fii dunyaahu ilaa man huwa duunah ninka adduunyadiisa markay noqoto eega ciddii kasii liidatay oo faxamid allahu calaa maa fadalahu bihi calayh ilaahay ugu xamdiya waxa uu kagaba fadilay taas waa shaakirkii waman nadara fii diini ilaa man huwa fowqahu faqtadaa bih xagga diintiisana cidda ka sarraysa ninka eega si uu higsado bal uu gaadho ugu daydo oo markaa kuba dayda amaa ninka adduunyadiisa eega ciddii isaga kaba sarraysay taalla murugooda shaakirna ma noqonayo oo yidhaahdo dee wixii siinay umay muuqanayo saabirna mama noqonayo baa man hama bixasanatin aw bisayi'a wallahu subxaana watacaala aclaa waclam subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayk اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا وعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا وارضنا وارض عنا